Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay kulan la qaatay waxgaradka iyo odayaasha mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Mudug. Waxgaradka iyo odayaashan ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee gobolka, shirkii nabadeynta ee kusoo dhamaaday Galdogob oo ay ka qayb galayeen odayaasha iyo guud ahaan amniga iyo horumarka gobolka. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la wadaagay odayaasha iyo waxgaradka qorshaha maamulka ee gobolka sida dhinacyada amniga, nabadeynta iyo horumarka, wuxuuna kula dardaarmay inay doorkooda ka qaataan oo ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka gobolka. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo oo uu ka waday kulamo ku saabsan adkeynta nabadgelyada. Tani waxa ayna qayb ka tahay kulamada uu madaxweynaha markaasi la qaadanayo odayaasha iyo waxgaradka deegaanada kala duwan ee Puntland, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaano dhowr ah oo dhaca dhanka Puntland ay ka jireen arrimo la xiriira dagaal beeleedyo soo laabtay kuwaas oo ay ku daateen dhiig fara badan.